subaxnimadii hore ee maanta gaar ahaan 4tii subaxnimo ayay warbaahinta qaranka ee Iiraan daaha ka qaaday inuu geeriyooday Cali Khamenei hogaamiyihii ugu sareeyay ee dalka Iiraan. haddaba tan iyo xalay markii uu soo baxay warka sheegaya in la dilay Khamenei waxa la isweydiinayay su'aalo dhowr ah oo ay ugu muhiimsan tahay maxaa dhici kara haddii la dilo ninkan, yaa bedelaya, maxay yihiin shaqooyinkiisu, si haddii la dilo ma laga yaabaa in nidaamka Iiraan uu burburo. dhammaan su'aalahan waxaynu uga jawaabi doonaa muuqaalkeennan. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waberi Media. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. haddii ay dhacdo in la dilo hogaamiyaha sare ee Iiraan Cali Khamenei, waxa la saadaalinayaa in tallaabadan ay noqon doonto dhulgariir siyaasadeed oo dib u qaabaynaya isku dheelitirka awoodeed ee bariga dhexe, ruuxaysana dhismaha nidaamka Iiraan, isla markaana nidaamka caalamiga ah gelinaysa imtixaan adag oo aan horey loo arag. ninkani ma ahan madaxweyne la doortay oo lagu bedeli karo haddii uu dhinto hanaan siyaasadeed oo caadi ah, balse waafinta ugu saraysa Iiraan iskuna haya sharciyadda diimeed, awoodda ciidan iyo dhammaan hay-adaha ka jira dalkan. bartilmaameed kasta oo toos ah oo lagu qaado Khamenei, cawaaqibta ka dhalata waxay dadka falanqeeya arrimaha bariga dhexe ku tilmaamaan inay ka gudbi doonto xuduudaha juqraafiyeed ee Iiraan, taaban doontana suuqyada tamarta, isbahaysyada caalamiga ah iyo jihooyinka colaadaha ku fidsan gacanka ilaa bariga badda dhexe. si loo fahmo qotodheeraanta raadadka ka dhalan kara dilka ninkan, waa in marka hore aynu fahanno saamaynta booska hogaamiyaha sare uu ku leeyahay qaabdhismeedka dowladda Iiraan. waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, kormeeraha ilaalada kacaanka iyo qofka leh ereyga kama dambaysta ah ee dhammaan arrimaha waaweyn ee ka dhacaya Iiraan, gude iyo dibadba, laga bilaabo barnaamijka nukliyeerka ilaa siyaasadaha gobolka. nidaamka Iiraan wuxuu leeyahay hay-ado la doorto sida madaxweynaha iyo baarlamaankaba, hase yeeshee awoodda ugu dambaysa ee arrimaha masiiriga ah jaangoysa waa hogaamiyaha sare ee dalkan oo ah Cali Khamenei. dilkiisu wuxuu abuuri doonaa firaaq lama filaan ah oo ka dhashay isku dheelitirka siyaasadeed iyo amni ee dalkan, waxayna hay-adaha dowladda ee Iiraan gelayaan imtixaan adag oo ku saabsan sii jiritaankooda. haddaba haddii aynu u nimaanno su'aasha uu daran yahay muuqaalkeennan ee ah maxaa dhici kara haddii la dilo Khamenei, jawaabta waxaynu ka helaynaa dastuurka Iiraan sida ku xusan qodobka 111. haddii hogaamiyaha sare uu geeriyoodo, la dilo ama si lama filaan ah uu awoodi waayo inuu qabto waajibaadkiisa, jagada hogaamintu ma garayso firaaq dastuuri ah, balse taa beddelkeed waxaa si degdeg ah loo magacaabayaa hay-ad 3 geesood ah oo ka kooban madaxweynaha jamhuuriyadda, madaxa garsoorka iyo mid ka mida fuqahada ama wadaadada golaha ilaalinta dastuurka. hay-addan ma lahan awood ay ku doorato hogaamiye cusub, mana noqonayso hoggaan joogto ah, balse waajibaadkeedu wuxuu ku koobnaanayaa inay si kumeel gaar ah u maamusho arrimaha sare ee dalka si loo hubiyo sii jiritaanka go'aanada siyaasadeed, militari iyo amni ee dalka. dhanka doorashada hogaamiyaha cusub waxaa u xil saaran hal hay-ad oo ah hay-adda loo yaqaan golaha khubarada hogaaminta. wargelin muhiim ah haddii aad rabtid inaad xirfad baratid bishan Ramadaan, waxaan qiimo dhimis 75% ah ku samaynay qayb ka mid ah koorsooyinkeenna Waberi Academy. koorsooyinka muuqaal samaynta oo idil oo gaaraya 6 koorso oo ay ka mid yihiin sida lacag looga sameeyo Facebook, sida muuqaalada loo edit gareeyo. koorsooyinkan hadda waxaad ku iibsan kartaa inta lagu jiro bisha Ramadaan $33 oo keliya. qiimahoodii hore wuxuu ahaa $133 oo halkii koorso ayuu qiimaheedu ahaa $25, laakiin hadda dhammaan 60 koorso waxaad ku heli kartaa $33 oo keliya. isdiiwaangeli oo yaan lagaa buuxin. waxaad iska diiwaangelin kartaa WhatsApp lambarkan ka muuqda shaashadda oo aad sidoo kale ka heli kartid kommentiga ugu horeeya. haddaba si aynu si wacan ugu fahanno, aynu isla milicsanno qaabka uu u dhisan yahay nidaamka maamul ee dalkan, si aad u fahantid sida ay hay-adaha guud ee dowladdu u wada hoos yimaadaan hal nin oo keliya. nidaamka siyaasadeed ee Iiraan waa nidaam ugub ah oo ka duwan nidaamyada kale ee dunida ka jira. lama mid aha nidaamyada ku dhisan madaxweynaha ama boqortooyada ee la yaqaan, balse taa beddelkeed wuxuu ka kooban yahay hay-ado u kala baxa, kuwo la magacaabo iyo kuwo la doorto. nidaamkan wuxuu tan iyo curashadii kacaanka islaamiga ah ee ka hana qaaday dalkan hogaaminayeyna Ruuxullah Khamenei oo ku dhisnaa mabda' loo yaqaan wilaayada faqiiha, kaasoo ah tiirka dastuuriga ah ee siinaya wadaadka ugu sareeya dalka awoodda hogaamineed ee dalka oo dhan. in kasta oo Iiraan ay isku magacowdo inay tahay jamhuuriyad islaami ah, haddana ma ahan jamhuuriyad dhaqameed, mana aha nidaam diini ah
oo saafi ah, balse waa isku dar adag oo ka kooban hay-ado la doorto iyo kuwo la magacaabo oo awoodahoodu isdhex galaan. Hase yeeshee kelmadda ugu saraysa uguna dambaysa waxaa iska leh hogaamiyaha sare. Jagada hogaamiyaha sare maanta waxaa ku fadhiya Cali Khumeyni, wuxuuna matalaa awoodda ugu saraysa ee siyaasadeed iyo diimeed ee dalku leeyahay, maadaama dastuurka Iiraan uu siinayo awood ballaaran oo ay ka mid yihiin dejinta siyaasadda guud ee dowladda, go'aaminta istiraatiijiyadaha militari ee dalka oo uu ku jiro malafka nukliyarka, ku dhawaaqidda xaaladaha dagaal, hogaaminta ciidamada qalabka sida, magacaabidda madaxa garsoorka iyo magacaabidda kalabar xubnaha golaha ilaalinta dastuurka. Sidoo kale hogaamiyuhu wuxuu leeyahay awood uu xilka kaga qaado madaxweynaha jamhuuriyadda haddii ay maxkamadda sare ku hesho inuu ku xadgudbay waajibaadkiisa dastuuriga ah, ama haddii baarlamaanku u codeeyo inuu yahay midaan shaqada sii wadi karin. Dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah jagada uu hadda hayo Mascuud Pezeshkian waa awoodda fulineed ee ugu saraysa dalka. Marka laga yimaado Khumeyni, waxaa si toos ah u doorta shacabka, wuxuuna xilka hayaa muddo 4 sano ah, isagoo loo ogol yahay inuu 2 xilli ama 2 wareeg uu soo noqdo. Waajibaadkiisa iyo awoodihiisa waxaa ka mid ah maaraynta arrimaha maalinlaha ah ee dowladda, guddoominta golaha wasiirada, saxiixa heshiisyada caalamiga ah iyo hogaaminta golaha sare ee amniga qaranka. Hase yeeshee awoodahani maaha kuwo aan xad lahayn, maadaama dhaqdhaqaaqyadiisa dhammaantood ay ku xiran yihiin qaabdhismeedka siyaasadaha uu dejiyo Khumeyni. Sidoo kale go'aanada golaha sare ee amniga qaranka ma dhaqan galaan ilaa uu Khumeyni ansaxiyo. Haddii aynu u nimaanno baarlamaanka ama golaha shuurada, waa sida looga yaqaan Iiraane, wuxuu ka kooban yahay 290 xildhibaan oo la soo doorto muddo 4 sano ah, waxaana ka mid ah awoodihiisa dejinta sharciyada, su'aalo weydiinta iyo la xisaabtanka wasiirada iyo madaxweynaha, siinta iyo kala noqoshada kalsoonida xukuumadda, iyo sidoo kale ansixinta heshiisyada caalamiga ah. Hase yeeshee dhammaan sharciyada uu ansixiyo baarlamaanku waa inay maraan shaandho kale oo ah golaha ilaalinta dastuurka. Golaha ilaalinta dastuurku wuxuu ka kooban yahay 12 xubnood. 6 ka mid ah waa fuqaho ama wadaaddo shiico ah oo uu si toos ah u magacaabo Khumeyni. 6 kalena waa garsoorayaal uu soo magacaabo madaxa garsoorku, isla markaana uu baarlamaanku ansixiyo. Shaqadiisa asaasiga ah waa dib u eegidda sharciyada si loo hubiyo inay waafaqsan yihiin shareecada Islaamka iyo dastuurka Iiraan, fasiraadda qodobada dastuurka, hubinta musharaxiinta doorashooyinka madaxtinimada iyo baarlamaanka u tartamaya, iyo ansixinta natiijada doorashooyinka. Sidoo kale waxaa jira golaha khubarada hogaaminta oo ah hay-ad diimeed ka kooban 88 xubnood oo la doorto muddo 8 sano ah. Waajibaadkeeduna yahay doorashada hogaamiyaha sare, kormeerka waxqabadkiisa iyo xilka qaadistiisa haddii uu waayo shuruudaha dastuuriga ah, in kasta oo ay naadir tahay inuu farageliyo arrimaha siyaasadeed ee tooska ah. Sidoo kale waxaa jira gole loo yaqaan golaha ogaanshiyaha danta nidaamka oo ah hay-ad tala bixin ah oo la aasaasay sanadkii 1988. Xubnaheedana waxaa magacaabo Khumeyni. Shaqadeeda ugu weynna waa xalinta khilaafaadka u dhexeeya baarlamaanka iyo golaha ilaalinta dastuurka iyo inay talooyin siiyaan Khumeyni. Ugu dambayn waxaa jirta hay-adda garsoorka oo hogaamiyaheeda uu si toos ah u magacaabo Khumeyni, taasoo qaabilsan magacaabista garsoorayaasha, kormeerka maxkamadaha iyo maxkamadda sare. Arrintan oo ka dhigaysa in hay-addan ay si toos ah ugu jirto saamaynta awoodeed ee Khumeyni. Sidaa daraaddeed, nidaamka siyaasadeed ee Iiraan wuxuu ku dhisan yahay isku dheelitirnaan muuqaal ah oo u dhexaysa hay-ado la doorto iyo kuwo la magacaabo. Maahan oo keliya nidaam madaxweyne ama baarlamaan, balse waa tusaale gaar ah oo isku dara astaamaha jamhuuriyadda iyo dowlad diimeed hoos imaanaysa. Waxaa loo yaqaan wilaayada faqiiha. Ma bedeli karaan weerarada Maraykanku miisaanka awoodeed ee Iiraan? Nidaamka Iiraan looma qaabayn wax ku oolnimo, balse waxaa loo qaabeeyey sii jiritaan iyo inuu ahaado nidaam sii waara. Xitaa haddii dagaal dhaco, awooddana si ulakac ah ayaa loo kala qaybiyey. Madaxweynuhu wuxuu hoos tagaa hogaamiyaha sare ee Iiraan oo ah Khumeyni. Baarlamaanku wuxuu sharci dejiyaa iyada oo ay jirto awoodda diidmada ee loo yaqaan veto oo uu leeyahay golaha ilaalinta dastuurku. Ciidankuna wuxuu hoos yimaadaa ilaalada kacaanka oo aan u hoggaansamin cid aan ahayn Khumeyni. Shabakaddan ah hay-adaha isdhex galay waxay damaanad qaadaysaa inuusan jirin qof keli ah, xitaa madaxweyne isbeddeldoon ah, oo awood u yeelan kara inuu nidaamkan kala diro ama uu saameyn ku yeesho jiritaankiisa. Xitaa haddii duulaanada Maraykanku ay waxyeelo gaarsiiyaan kaabayaasha militari, aad ayay u adag tahay inay hoos u dhigaan saamaynta uu leeyahay ciidanka loo yaqaan ilaalada kacaanka
maadaama hay-addu taariikh ahaan u adeegsatay hanjabaadaha uga imaanayay dibadda si ay u xoojiso gacan ku-haynteeda, u sharciyeyso ololayaal caburin ah, una kiciso xamaasad qarannimo oo ay dadka ku tusayso inay leeyihiin cadow soo jireen ah. Inta aynan soo gunaanadin muuqaalkeenna, aynu dul istaagno mid ka mid a unugyada ciidan ee ugu halista badan dalkan. Waa unugga loo yaqaan ilaalada kacaanka. Unuggan maahan oo keliya hay-ad milatari, balse waa qaab dhismeed dhammaystiran oo isku dhafay caqiidada, hubka, siyaasadda iyo dhaqaalaha, isla markaana noqday mid ka mid a tiirarka ugu muhiimsan ee uu nidaamku ku dhisan yahay tan iyo kacaankii 1979. Ilaalada kacaanka waxaa loo yagleelay cabsi laga qabay suurtagalnimada afgembi milatari ama faragelin ay kacaankii islaamiga ahaa ee Iiraan ku sameeyaan ciidankii caadiga ahaa ee ka jiray dalka xilligaas, waxayna ujeeddadiisa ugu horaysa ahayd ilaalinta guulihii kacaanka iyo hubinta sii jiritaanka nidaamkan cusub. Tan iyo xilligaas, si tartiib tartiib ah ayuu ku gaaray fiinta ugu saraysa ciidanka dalkan, wuxuuna maanta saamayn go'aan qaadasho ku leeyahay amniga gudaha, siyaasadda dibadda, dhaqaalaha qaranka iyo xitaa qaabaynta ra'yiga guud ee bulshada iyadoo loo marayo qalab warbaahineed iyo mid dhaqanba. Ilaalada kacaanku waxay ka kooban yihiin laamo kala duwan oo leh ciidamo dhuleed, badeed iyo cir. Sidoo kale waxay leeyihiin gantaallo casri ah kuwaasoo noqday lafdhabarta awoodda iska caabineed ee Iiraan. Qaar ka mid a falanqeeyayaasha siyaasadeed ee Bariga Dhexe ayaa aaminsan in weeraradan ay xoojin karaan doorka ilaalada kacaanka, isla markaana laga yaabo inay gogolxaar u noqdaan soo bixitaanka nin awood leh oo aan ahayn Khomeini oo diyaar u ah inuu ka tanaasulo mabda'a islaamiga ah ee uu ku dhisan yahay nidaamka Iiraan si uu u hindiso Iiraan cusub oo ka duwan tan hadda jirta. Si kastaba ha ahaatee, ilaalada kacaanku maahan hal unug oo isku mid ah, waxayna leeyihiin taariikh dheer oo tartanno iyo loolanno gudahooda ah. In kasta oo loolankaasi uu ku jiray xakame, haddana xasilooni darro kasta oo ka dhacda Iiraan waxay keeni kartaa in khilaafaadkan ay mar kale soo shaacbaxaan. Intaas ayaynu ku soo gunaanadaynaa muuqaalkeenna maanta. Haddii uu ku qanciyey muuqaalkan, ha ilaawin inaad like inoo saartid oo aad la wadaagtid asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna, nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. Mahadsanidin.